kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee suuqyada crypto hadii aan ku bilowno qiimaha Bitcoin waxa uu hoos uga dhacay qiyaastii 4% waxa ay suuqyada sugayaan go'aanka kama dambaysta ah iyo warka ka soo bixi doona bangiga dhexe ee Mareykanka suuqyada waxay ka walaacsan yihiin go'aamada siyaasadeed ee dhinaca maaliyadda ee la filan karo taasoo keentay inuu hoos u dhac ku yimaado guud ahaan qiimaha lacagaha dhijitaalka ah dawladda isku taga Imaaraadka Carabtu waxa ay soo saartay sharci cusub oo lagu hagayo isticmaalka iyo maareynta stablecoinska taas oo qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu dhiirigeliyo sahaminta iyo ammaanka hantida dhijitaalka ah wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalka isku taga Imaaraadka Carabtu waxa ay sheegeen in shuruucdan cusub ay ka qayb qaadan doonaan kor u qaadista iyo kalsoonida maalgashadayaasha isla markaana ay si weyn uga hortagayaan qatarta suuqyada dhijitaalka ah sida isbedelada qiimaha iyo dhaqaalaha oo hoos taga xeerarka konka loo yaqaano BNB ee uu leeyahay companyga Binance ayaa waxa uu gaaray heerkiisa ugu sareeyay waxa loo yaqaano all time high taariikhda markii ugu horeysay BNB waxa uu gaaray $800 tanina waxa ay ka dhigan tahay in BNB uu jabiyay rikoorkiisa hore kaas oo ahaa $793 waxaana la diiwaan geliyay bishii December ee soo dhaafnay sanadka 2024 qiimaha kororka BNB waxa uu ka turjumayaa kalsoonida sii kordhaysa ee maalgashadayaasha iyo shirkaduhu ay ku qabaan waxa loo yaqaano Binance Chain intaas ayaa ugu waaweyn wararka maanta mar walba la soco My Exchange